kulantii waxaana wanaagsan dhammaan khiyaarta kala duwan ee dabcan hawada iyo goor walba naga daawatay kuna soo dhawaada barnaamijkeena hanka siyaasiga oo toddobaad walba iyo goor walba halkan aad ku soo gudbino toddobaadkan barnaamijka hanka siyaasiga waxaynu ugu casuumeen Caynaasha Cabdiraxmaan oo kamid ah musharaxiinta leelinaysa hanashada hoggaanka musharaxnimo ee dowladda federaalka Soomaaliya haddaba waa kuma Caynaasha Cabdiraxmaan kadib ayaan isku soo laaban doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baan idin salaamayaa bidaansha media iyo Darwish TV. aniga magacaygu waa Caynaasha Cabdiraxmaan waxaan ku dhashay anigu magaalada Muqdisho waxbarashadeeda ilaa dugsiga sarena waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho ilaa dugsiga sare oo aan ku dhameystay school dooran jiray 21 October kadib anigoo dhalinyaro ah waxaan u hayaamay xagga iyo North America kadib markii burburka wadanku bilaabmay waxaan ku noolaa wadanka Canada muddo dheer halkaasoo waxbarashadeedii heerka post secondary-ga la yiraahdo aan ku qaatay waxaan ku noolaa gobolka la yiraahdo Ontario magaalada Toronto waxaan ahay family man kadibna waxaan u wareegay gobol la yiraahdo Alberta magaalooyinka Calgary iyo Edmonton oo iyagana muddo dheer ku noolaa waxbarashadeedu intaas ay daaranayd kadibna shaqaan bilaabay iyo inaan qoys barbaariyo alxamdulillah haddana waxaan ku soo guriyo noqday wadankeygii maanta waxaan ku suganahay magaalada Garowe maamul goboleedka Puntland ee wadanka Soomaaliyeed xagga shaqooyinka aan soo qabtay marka laga reebo kuwiga personalka ah waxaan ka soo shaqeeyay hay'ado badan oo dalka u shaqeynayay ay kamid ahayd hay'adii SHDA la oran jiray dhaqdhaqaaqyo badan oo wadanka Soomaaliya ka socday gaar ahaan gobolada SSC waxaan ka soo supporter weyn oo ahaa maamulka SSC markii la sameeyay kadibna waxaan ka tirsanaa qaatumo maraan ahaa gudoomiyaha jaaliyadaha iyo maraan ahaa wasiirka iskaashiga caalamiga ah shaqooyin badan oo kulli dalka quseeya ayaan ka soo shaqeeyay haddana waxaan u imay halkan halganka inaan halkiisii ka sii wado haddii Ilaahay ka raali noqdo waayahay hagaag daawadayaal taariikhda kooban ee Caynaasha Cabdiraxmaan intaas kaga nimaadno dabcan xiriirka uu soo qabtay iyo sidoo kale siyaasadda qorshaha uu ka leeyahay barnaamijkan dabcan waxaan ugu magac darnay hanka siyaasiga qof walba oo siyaasadda halna soo gala waxay u taagan tahay maanta musharax xildhibaan ee dowladda federaalka Soomaaliya deegaan doorashada Puntland gaar ahaan Solsanad Yacan hankaaga siyaasadda musharaxnimada ku aadan iyo waxyaabaha isleedahay waad ballan qaadaysaa maxay tahay waan idin mahadinayaa barnaamijkan hanka siyaasadda ee ka soo baxaya bidaansha media iyo Darwish TV Caynaasha Cabdiraxmaan waa musharax u taagan xildhibaan u noqdo dowladda federaalka deegaan doorashada Puntland kana soo jeeda gobolada SSC haddii Ilaahay ka raali noqdo waxa igu kalifay inaan noqdo musharax halkaas waxa ii muuqday in wax qabad badan dhulkaas u baahan yahay waxa ii muuqday in la xoojiyo siyaasadda Puntland waxa ii muuqday shicibka reer SSC oo agardaamo badan kaga soo socoto dhanka waqooyiga gadarro joogtaana sida awgeed marka loo eego barnaamijyada waxbarashada arrimaha bulshada oo dhan marka la isku daro arrimaha midnimada ee dhulkaas uu taagan yahay qorshaygu waxa weeye haddii Ilaahay ka raali noqdo aan kursiga ku guuleysto inaan wax buuxa ka qabanno rajada dadkana soo celino dhulkaana lagu soo dabaalo midnimada Soomaalida cidii Soomaali ka go'aysan iyagoo aan ka mid noqon haba yaraatee waxa soo noqotay wasiir Khaatumo waxa jira heshiise ay wada galeen Somaliland iyo Khaatumo Allah naxariistay madaxweynihii Cali Khalifa Galeer geeriyooday iyo madaxweyne Siilaanyo Somaliland madaxweyne ah heshiidaasi wali ma fulin dadka shacabka SSC wali rajo badan bay qabaan oo heshiisaas ku saabsan maxaad kala socotaa heshiisaas maxay u fuli waayeen waan idin mahadinayaa Darwish TV iyo Bidaan Media heshiisyada hadda oo naxariisto madaxweynihii hore Khaatumo Cali Khalifa Galeer heshiisyada Somaliland iyo Khaatumo ay galeen
bilowgoodiiba xaaraan bay ahaayeen hal xalaalina ma dhasho hal xaaraanina nirig xalaala ma dhasho heshiiskaa dadka dhulka jooga u dhashay ee iskali raalli kamay ahayn heshiisya qaladay ahaayeen ma jirto reason dad Soomaali ka carariya dad midnimada Soomaaliya taageersan heshiis ay geli karaan ma jirto qalad bay ahayn heshiisyadaas waa laga soo horjeestay ilaahay u naxariistay madaxweynaha cid kula socotay ma jirto uu dhintay hadeer isagu ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo marka heshiisyadaasi markoodii horeyba qalad ahaayeen wax miro dhala oo laga sugayaana ma jirto waxay ahayd beriga waxaan niri ma Somaliland baa ka noqotay gooni goosadkii mise reer qaatma waxay ku qanceen inay wadan ka go'an labadaasi meesha ma oolin marka heshiisyadaasi markoodii horeba qalad bay ahaayeen wax ka hirgalaya ma jiro hawsha kaliya ee meesha dadka u taagan waxa weeyaan dadka Soomaaliyeedka inay ciidamadooda dhulka kala baxaan si walba waa loola hadlay uma eka dhagahooda inay halka u soo jeedaan waxayna noqon doontaa de hadhowto in xoog la isku caabiyo iyadoo waliba heshiisyadaas aan fulin Somaliland waxay qabanaysaa doorasho waxa la keenayaa deegaanada SSC sanduuqyo cod bixina iyadoo heshiisyadaas fulin dadka Khaatumo ama deegaanada Khaatumo ma aaminsan tahay mise aragtida ma qabtaa inaan sanduuqyada cod bixinta aan la keenin iyadoo heshiisyadaas fulin Somaliland sanduuqyo cod bixin deegaanada SSC ay u keeni kartaa masar bidaansha aad baan ku mahadinayaa sidoo kale bidaansha media iyo Darwish TV sanduuqyadaasi dad markay heshiiyeen ba sanaadiiq meesha timaada sanaadiiqda anigu dadka reer SSC waxaan ku oran lahaa haddii awr wado iyo haddii gaari wado iyo haddii nin wado inta wax la isla gubo waa taladay weeye sababtoo ah dadka dhulkani waa dadkii u soo dhintay dhulka waa dadkii gaalada kula dagaalamay waa dadkii u horeeyay Afrikaan ee diyaarado Ingiriiska iyo huwantii ay ku soo weerareen nin Soomaaliya oo wadanka kala goynay oo sanaadiiq wata hanka dadkaasi halka ma gaari karo afartan nin ee Hargeysa arinta ka soo qaban qaabinayna hal la iska qabto sanaadiiqdaasna waxaan oran lahaa findhicilku maxaraan ba mise waa xalaal xuskiisaba xun sanaadiiqdaani waxaan oran lahaa dhulka iyaga iyo cidii keentaba dab ha lagu qabto waayahay dalka iyo federaalka daba inuu ruqaansano musharaxiin fara badan baa ka horeeyay oo dabcan markay isharaxayeen lahaa waxaasanu qabanayna haddana waxyaabaha ballan qaadeen aysan qaban waad ogtahay deegaanada SSC marxalad siyaasadeed oo cakiran oo kala duwan bay soo wada mareen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaad kaga duwanaan doontaa musharaxiintii ka horeeyay deegaanada joogay xamar ee deegaanada matalayay waxa jira siyaasad dhahaysa dowladda federaalka deegaanada SSC dhulkaasi waa dhul lagu muransan yahay dowladda federaalka dadkiina qurba joogta ama siyaasiyiintina deegaanadu ma aragtaan aragtidaas in dhulkaasi lagu muransan yahay dhul lagu muransan yahay si aragtidina ku wajahan haddii aad kursiga hesho maxay tahay runtii qof waliba wuxuu aaminsan yahay isaga og anigu xildhibaanada halka jira hadeer waxaan u arkaa inaanay waxba qaban waxaan u arkaa badankood yana 100% oran laakiin badankood waxaan u arkaa in dad meesha iska jooga oo dhaqdhaqaaq sameyn si dad baqaya oo second dad kale mar walba daba taagan inay yihiin laakiin anigu waxaan aaminsanahay deegaan doorashadan ka socday ee Puntland iyo dadka gobolada reer SSC xuquuqdooda inaan Muqdisho sidaan u ballan qaadi karo Ilaahay baa igu in alla inta awoodayna ka soo baxayo midda kale xuquuqdooda dhulka ka maqan in laga soo saaro way dhul la isku haysto way marka la leeyahay ma garan karo macnaheeda dhulkan Ethiopia iyo Soomaaliya isku haysto cid kale oo isku qabsan kartaa ma jirto goboladani waxay ka tirsan yihiin maamulka Puntland goboladani dadka goboladan deegaa waa dad midnimo doon ma aha dad midnimada Soomaaliya ka cararaya marka cid isku haysataana ma jirto kaliya waxa jira ciidamo SNM originalkoodu ahaa oo meesha soo weeraray qabsaday dadkiina muuqoonay hubkii ay dawladii dhexe Soomaaliya xoog badneed ka heleen markii dawladii dhacday ku soo weeraray
laakiin waqti kooban baa ka haray waxaan kolley ka shaqayn doonaa sidii gobollada iyo weliba ilaa Hargeysa loogu soo dabaali lahaa midnimada Soomaalida oo uga mid noqon lahayn calankii buluuga ahna mar kale uga dulbaban lahaa Hargeysa iyadoo shicibka dhulkaas ay dhibaato badan ku qabaan nimankan horjooga ee mar walba leh wadan baynu nahay dadka dhulka u dhashay wax baasaboor ma heli karaan waxbarasho ma heli karaan fiise meel looma dooran karaan halkan garow u soo doontaan iyo buuhood marka haddaan tago anigu waxaan ka shaqaynayaa in midnimada Soomaaliya la soo dhaweeyo dadka gobolada ACC-na xuquuqdooda la raadiyo xildhibaanka federaalka wuxuu matalaa from corner to corner wadanka waxaan matali doonaa xadka Kenya hadeer xad beenaadka halka ku yaala ilaa xadka Djibouti haddii Ilaahay ka raali noqdo shicibka inaan u adeego inaan la intii awooday intii xildhibaan qaban lahaa in lagu xisaabtamana diyaar baan u ahay waayahay Aynashe dhawaan waxaa jirtay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo su'aal laga weydiiyay deegaanada ACC iyo doorka dowladda federaalka ay ku leedahay su'aashaasi wax jawaab markaa u muhlin waxa jira kulan uu garow ku qabtay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dabcan deegaanada wuxuu ku tilmaamay deegaanada dadka deegayihiin dad Soomaaliyeed dad masiirkooda nool yahay dad aan xuquuqdooda la hoos geyn karin Hargeysa iyo Garowe aragtida labada madaxweyne ee kii hore ka hadda jooga sidee ku kala muuqata Aynashe waa idin mahadinayaa Bidaansha Media iyo Darwish TV madaxweynaha su'aasha la weydiiyay runtii ninkaas waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha qaranka laakiin su'aasha kolley ummadii aragtay oo dhan way la yaabtay waxa dhici karta madaxweynuhu inuu si kale u xalinayay howlaha waxa dhici kartay madaxweynuhu inuu dana kale oo siyaasadeed ka lahaa meelaan ahayn SSC anigoo madaxweynaha ixtiraamaya madaxweynuhu su'aashaasi waa dhaaftay jawaabtaana madaxweynuhu mid ku habboon ma ahayn laakiin aragtidiisa way isagu sidoo u arkay xuquuqda dadka iyo dhammaan xuquuqda dadka Soomaaliyeed oo dhan waxa mas'uul buuxa ka madaxweynaha qaranka madaxweynaha mid jawaabta ka duwan baa looga fadhiyay laakiin kolley isagu markaa sidaa xal buu mooday xalka dadkaana isaga looga fadhiyaa inkastoo waqtigiisii hadda gabagabo uu yahay marka madaxweynaha intaa wax u raacin maayo tan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 sanadood buu madaxweyne soo ahaa iyo waliba 6 bilood baan malaynayay 8 waxayd ma garanayo dheeraado uu ku darsaday beriga waxba kama qaban marar badanna waxaan marqaati ka hayn inuu isagu hor joogsaday marka waqti campaign baa lagu jiray madaxweynuhu waxaan filayaa inuu ilaaway aragtidii uu ka qabay haddana hadduu doorashada la gelayo Ilaahay ku guuleeyo haddii Ilaahay ku guuleeyo isagay jirtaa laakiin waqtiga doorashada siyaasiyiin badan iyo marka doorashada ay dhaafaan siyaasadoodu waa kala duwan tahay umarayn maayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in jawaabta uu ka bixiyay daacad ka ahayd waxaan u qaatay kolley anigu jawaab doorashada ku saabsanayd good waayahay guntii gabagabadii ayaan barnaamijkeena sii siqaynaa marxalada kala duwan oo siyaasadeed oo jahwareersan ay dadka deegaanadaasi soo mareen xilligan la joogo xataa ay ku sugan yihiin maadaama wasiirka xiriirka caalamiga ee Khaatuma soo noqotay maantana aad u taagan tahay musharax xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya talada guud aad siinayso dadka deegaanadaasi iyadoo hadda aynu ognahay waliba waxyaabaha fara badan ee dhibaatooyinka deegaanadaasi ka dhaca dilalka ugu badnaadeen hawlaha qabaa'ilka soo noqonayo hawl dhammaadeen ka musharax ahaan fariinta guud ee dadka deegaanadaasi aad u dirayso maxay tahay mar labaad iyo mar saddexaad Bidaansha Media iyo Darwish TV waa idin mahadinayaa su'aashaada aragtida dadka dhibaatada haysata gobolada ACC maamulka Soomaalidiidka ee Somaliland oo dhulka ku hayo runtii hab ciidan ayuu dhulka ku qabsaday waxaana qabiil doonayay inuu qabiil kale oo Soomaaliyeed oo la xuquuqa
oo taariikhda qudhooda ay ku kala duwan yihiin oo la yaqaan xaafad walba taariikhdeeda ku raadsanaya si guracan dadka gobolada ACC waxaan ku oran lahaa markaan eegay waxyaalaha ka dhacaya magaalada Laascaanood markaan eegay dilalka qorshaysan markaan eegay haldoorka laga laynayo markaan arkay ninkii u dhaqaaqaba oo xabsi loo dirayo markaan arkay miidiyaha la caburinayo markaan arkay dumarka iyo carruurta sida loola dhaqmayo runtii wax nasiib darro ah weeye in 2021 annagoo galay arrintaasi ay taagnaato dadka reer ACC waxaan ku oran lahaa arrintaa ka gilgisha iska celiya dhulkani waa dhulkiinnii haddaad maamul wax la leedihiin Puntland baad wax la leedihiin marka runtii waxaan ku oran lahaa maamulka Soomaali diidka ah haddeer waxaa ku dhacay dhaqaale la'aan waxay ka soo quusteen aqoonsigii iyo riyadii beenta ahayd sidaa darteed waxaa ciilkii uu keenay inay ka aarsadaan dadkan iyagoo hab qabiilaysan hab caadifadaysan hab midnimo diida ku laynaya dadka reer ACC dadka reer Puntland waxaan ku oran lahaa waxa la soo gaaray waqtigii arrinta laga gilgilan lahaa waxa la soo gaaray waqtigii midnimada Soomaaliya ma aha ACC oo kaliya ilaa awdal la gaarsiin lahaa midnimadii Soomaaliya marka runtii nasiib darro xun baa halka ka taagan dawladda federaalka waa ka gaabisay xuquuqdii dadka ilaahay hadduu ka raali noqdo kulley waxaan dadka aad ugu guubaabinayaa dadkan hab siyaasadeed iyo hab gacan dhinac walba isugu taga dhulkiinana ka saara iskari gibilay ka yimi meel ka shishaysana ha u ogolaanina inuu dhulkiina haldoorkiina ku laayo maatidiina ku xidhxidho waa la soo dhaafay waqtigii digdigtii iyo waxbaan wadan baan nahay wadan ma aha waa maamul goboleed caadifadi wado marka dadka waxaan ku guubaabin lahaa iyaga qudhooda shicibka reer waqooyigii waa dad walaalaheena laakiin maamulkaas Soomaali diidka ah ee Soomaalida ka carray Soomaalinimada ka carray waxa ku dulman oo xuquuqdoodii ku maqan yihiin dadka reer waqooyi galbeed iyo reer togdheer qudhooda waxaan ku oran lahaa heeriyada hal la iska tuuro midnimada Soomaaliya hal laga shaqeeyo calankan maamul goboleed baa lahaa lagu yiri calankan ay wataan in Itoobiya ka tirsan quraanka lagu xarnay in beenta laga daayo way calan shaqeynaya ma Soomaaliya hal calan bay leedahay Soomaaliya waa hal wadan in halka la isugu soo ururo nimanka dadka dhiigooda cabay ee haddeer xukuumana in maxkamad caalamiya la soo saaro intaasaan ku soo gabagabeynaya jawaabtaana waan idin mahad celinaya mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad shaqada aad wadaan ilaahay haydin guuleeyo annana waa idin garab taagana waayahay su-aasha ugu dambaysa ee barnaamijkeena hanka siyaasiga xilligan waxaa dooranaya ergooyin doorashadii xildhibaanada waxaad moodaa in hab qabaa'il noqotay oo odayaal iyo ergooyin ay soo dooranayaan fariintaada musharaxnimo ee aad ergooyinka iyo odayaasha beeshaada ama deegaanada ACC aad u diraysaa codka ka doonayso muxuu yahay maxaad kula talin lahayd ergooyinka tala aad u siiyay waxaa soo xulaya musharaxiinta haddeer kala saaraya 101 xubnood oo erga ah waxaan tala u jeedin lahaa ergooyinka marka hore xamar waxa jooga haddeer 10 xildhibaan oo deegaanadan ka socda ACC deegaan doorashadooduna Puntland tahay waxqabadkooda eega dadkii aad dirteen sida yihiin eega dadka hadda aad soo xuleysaan ha noqdaan dad deegaankii wax tari kara dad ummadda Soomaaliyeed wax tari kara dad midnimada Soomaalida ku dhiiran kara oo ka hadli kara dad aan number 2 cidna u noqonayn oo xildhibaan dadka Soomaaliyeed dhexdhexaad u ah ka shaqeeya midnimada Soomaaliyeed Soomaalinimadu waxba aanay uga sokeyn ha noqdo ergooyinka waxaan si gaar ah ugu oran lahaa dadka aad soo xuleysaan yaanay noqon kuwa dhaqaale kaliya aad ku soo xushaan ha noqdaan kuwo ummadda Soomaaliyeed anfici kara yaanay dhicin qof dadka wax tari lahaa inaad ama lacag ama waji garasho kale ama jacayl kale uga siisaan mid aan dadka wax tarin markuu halka tago arrinta gacantiina waxa ku jira 4 sanadood ee soo socota masiirkii ummadda Soomaaliyeed qofka aad istirahaan oo Ilaahay idin loogyahay aad istirahaan qofkaas dadka ugu wax tar badnaanaya
haddii ilaahay ka raalli noqdo waa inaa qofkaas soo xushaan kolley anigu qorshayaal iyo mashaariican maskaxda ku hayaa jira haddii ilaahay igu guuleeyona dhulkaan ka fulin doono aniga iyo asxaab kale aan leeyahay kolley iyaguna arrintan u socda doorashada gelaya guul baan idin rajaynaynaa waa idinku kalsoonnahay dadka u qalma oo wuxuu soo qabanaya laakiin ballankeennu taa weeye haddii ilaahay ka raalli noqdo waan idin salaamayaa dhammaantiin waan u mahad celinayaa bidhaansha media iyo darwiish TV aad iyo aad baan idiin bogaadinayaa shaqada wanaagsan ee aad dadka Soomaaliyeed u haysaan ilaahay ha idinla garab galo hana idinku guuleeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.